بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أو وناكسن إذا لهنتي بعمل كستود نجد عوانيسان هل كني وقرح ويب تي في حرنتي سادلك أستراليا وضعنا نجد عواتان شبكة عالمية وان كذي هي www.qorraxay.com دعوة يالو حد كسود واتان برنامج هذا بلارن وجاليات كسوماليدا وقادين يجاليات أوروميا ay ku hor banaanbaxayeen baarlamaanka dalka Australia ee caasimadda Canberra banaanbaxayaasha oo ka kala yimid meelo aad u kala fogfog sida magaalada Perth, magaalada Sydney iyo magaalada Melbourne. Qorraxay Media ayaa su'aalo weydiisay banaanbaxayaashii barnaamijkan idinka soo diyaarisay. Ethiopian government is the killer. Ethiopian government is the murderer. We demand justice. We demand peace. We want justice. We want peace. We want freedom. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Ethiopian government is the murderer. Stop the rape. Stop the killing. Stop the rape. Stop the killing. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة قيمة هي قدرين تمضنا وعد كسر واتان برنامج أنك صوت ديارني برنامج عادو بلارن أو جاليات كصومالية أو جاليات الصومالية أو قادين جاليات أورومية أيكون برنامج هيان برلمان كوين كامبرا وبرلمان كدلك أستراليا عاصمة دلك أستراليا وحامش نسوي يمد ضد عادو فربضان أو كي يمد ملك الدول سدا ملبون سيدني بيث iyo gobolada dalka uu ka kooban yahay oo dhan waxa gadaashayda ka muuqda dad aad u fara badan oo careysan oo aan doonayno bal inaan shucuurtooda iyaga oo runtii ka cabanaya ama dareenkooda isu mideeyay si dhibaatada shacabkooda lagu hayo ay uga dhiidiyayaan haddaba waxaan doonaynaa inaan su'aalo yar yar weydiino dadkii banaanbaxa ka soo qayb galay jiro waxaan hadda doonayaa inaan bal qofka u horeeya aan su'aal weydiino bal sababaha u keentay Shukri Shafeec oo aqoon-yahan u dhashay Ogaadeniya oo ka yimid magaalada Sydney Shukri dareenkaagu sidee buu yahay waxaad hortaagantiin baarlamaankii Australia ee Canberra dareenkaagu sidee buu yahay maxay tahay ujeedada aad u timaadeen meeshan halkan waxaan u nimid halkaas sartaas waa baarlamaankii looga talinayay dalkan Australia marka halkan waxaan u nimid inaanu gaarsiino dhibaatada dawladda Itoobiya maxishootada ah awayaanuhu ay hogaamiyaan ay ku hayso dadka naga marka waxa weeye waa hiilo aan u heelinayna anagu dadka naga oo u sheegayno adduunka dhibaatada haysata marka halkan hadda waxaan u nimid in aanu si toos ah ugu gudbino dawladda Australia in dhaqaalaha ay siiso waxay doonayaan noqoto ay siiso dawladda Itoobiya in ay tahay waxa dadka naga lagu gumaadayo lagu dhibaateynayo marka aid kasta oo ay bixiyaan wuxuu ka dhigan yahay dhibaato loo geystay dadka naga taas waa message xageed ka timid adigu magaalada ka timid maadaama oo jaaliyadii Ogaadeniya ay qayb meel kala duwan ay ka timid xageed anigu Sydney baan ka imid waxaan soo socday ilaa 4 saacadood oo toos ah marka halkaas aanu isaga nimid dad kale oo ka yimid 4,000 kilomitir baa jira oo ka yimid Perth dad kale oo ka yimid Melbourne baa jira iyaga laftoodu waa 1,000 kilomitir marka intaas oo dhan baa la isaga yimid hooyooyinkii baa socda dhalinyaradii baa socda waxa socda duqeydii iyo dadkii waaweynaa ee odayaasha ahaa baa socda marka waxa weeyaan maanta waa
waa la dhaqaaqayaa maanta waxa weeyaan message baa la gudbinayaa maanta waxa weeyaan waa maalinkii adduunku uu ogaan lahaa dhibaatada halka ka jirta in badan baa loo sheegi jiray laakiin hadda waa xilligii ay si fiican u fahmi lahaayeen xilligu wuu isgaaray duruuftii taa keeni lahayd oo dhanna way dhalatay oo way samaysantay marka xilligii dadka iyagu kici lahaa xilligii dunidu ogaan lahayd iyo xilligii iyadu ay daciifi lahayd yaa la taagan yahay wax la qarinayaa ma jiro wax la dadadayaa ma jiro hadday iyadu ku talagashay inay qariso intay soo qarin kartay way soo qarisay laakiin Ethiopia dadka naga la dhibaateynayo qariskoodii wuu dhamaaday aad iyo aad baa u mahadsantahay daawadayaalkaasi waa Shukri Shafeec oo aqoon-yahan u dhashay Soomaalida Ogaadeniya oo ka yimid magaalada Sydney oo aan waraysanayno haddana waxaan u yeedhaynaa qofka xiga innagoo weli ku guda jira waxaa gadaashayda taagan Uwaas Xukun Axmed Saahid oo runtii ka yimid isagana magaalada Sydney dareenkiisaan isna aan weydiinayna Uwaas ku soo dhawow dareenkaaga waxaad hor taagan tahay baarlamaankii laga maamulayo dalka Australia ee Canberra muxuu yahay dareenkaagu maadaama oo aad dadkan markii la fiiriyo uu garweyn tahay ugu daaweynta ma tiraahdo adii qaranaysa miya marka waan ku faraxsanahay inaan maanta Canberra baarlamaankii Australia xaruntiisii aan hor taaganahay oo u gudbino dacwadanada iyo dhibaatada dalkii haysata reer Ogaadeniya hawshan soo kicisay waxaan kaloon ku faraxsanahay in gobolkii uu dhacay muxuu ahaa wayaanaha iyo wasakhdii la shaqaynaysay marka hawshaana waan ku faraxsanahay waxa kale oo ku faraxsanahay isbahaysiga cusub oo shacabkii dulmanaaye reer Ethiopia ay gamaha isqabsadeen halgankoodii dhan kastaba ay ka muxuu ahaa mideeyeen taana waan ku faraxsanahay waxaan ku soo gabagabeynayaa allahayow nin daalima allahayow nin daacada allahayow nin daalima deeqdaada hawsigin ilaahu jabhada oona leh halganka soddonka sano wadda iyo daalin calool weyn oo حرامينا إلهيو دقيقة هذا هوسمن إلهيو واكو برينا لقى قاد مانتا وحن صارن شعب كنجا دبعتا إله كرنو وقاد أنت أصلا كو قبينا يا هذه يضبط ما صنتها داود يالكاس وسعكون أحمد سعيد أو عن كوريسين يسقوا تاجن برلمان كهورتيسا ما شاء الله مع ملودلك أستراليا كامبرا وحنادنا كل حين إن جيمس بريق أو رنتي أبوان وده شيء Soomaalida Ogaadeniya ah in badanna laga yaabo inaad riwaayado oo Pacifica ka dhigay aad aragteen iyo heeso badan oo uu sameeyay abwaan James ku soo dhawo qorraxay media waraysigan aan kula yeelanayno board weyn baad haysataa xageed ka timid maxay tahay ujeedada u timid Canberra maanta u hortaagan tahay baarlamaanka Australia waxaan ka imid magaalada Melbourne waxaan soo soconay 600 kilomitir runtii maanta waxaanu baarlamaanka u hortaaganahay dulliga iyo gumaysiga dadka yagii lagu hayo ee barna jeelka uu ku dilaayo barna ayda uu ku dabaayo ayaan u dagaalamaynaa oo aanu leenahay adduunka inaanu tusno oo adduunku arko ayaanu rabnaa waxaanu leenahay deeqda iyo gacan qabashada iyo gacanta la siinayo iyo garab taagnida waxaa laga daayo lacagaha aanu shaqaynay annaga la naga qaado ayaa lagu caawiyaa lacagtayadii baa lagu caawiyaa Ethiopia la siiyaa ciidan baa lagu samaystay lagu abuuray ciidan baa lagu dilaa waxaanu leenahay hal naga dadka iyaga waka sida loo galay waka dadka iyaga saasaa loo galay waxaan eegana malaha daba qoodhi wayaane kuwa sii daba jooga barna uu jeelku ku dilaayo barna uu ayda ku dabaayo iyo dooni maayo gumaysiyo dagaal baan ka xignaa baan leeyahay hadar waxa weeye dagaal baan u taaganahay maanta waxaan la dagaalamaynaa gumaysiga heriyada gumaysiga xum baan la dagaalamaynaa diidayna ma ku faraxsan tahay qabowgan maanta aad hor taagan tahay baarlamaanka Australia muxuu yahay shucuurtaadu maanta sidee buu yahay Abwan James qabowga aad sheegayso iyo roobka da'aya ee aan taaganahay ilaah baa igu og inuu saridanqayn oonan ogeyn aad iyo aad baan maartay ugu faraxsanahay waxa weeye wax ka kulul baan haya dadka iyaga haya annaga haya sida darteed wax aan ka ogahay ma jiro 3 habeen baan soo jeeday 3 habeen iyo 3 maalmood baan soo jeedaa intaana waxaan u soo jeeday dagaal kooda iyo dullinimada dadka iyaga lagu hayo iyo fikirka iyo xanaaq baan u soo jeeday marka
aad baad waan u mahadsan tahay daawadayaal waxaan haddana kaamirada ku leexinaynaa Siciid Beerdilaacshe oo runtii ah maxaan ku dhahay nin u dhashay Soomaalida Ogaadeniya oo dhinacayga midigta taagan Siciid ku soo dhawow waraysigan aan kula yeelanayno muxuu yahay dareenkaagu adigana maadaama oo hor taagan tahay baarlamaanka Australia magaalada Canberra aad hor taagan tahay baarlamaankii iyo dalka laga maamulahayay muxuu yahay ujeedada u timaadeen meeshan ujeedada aanu nimid oo ugu horeysa meeshan waxay tahay in aanu tusno dawladda Australia lacagta laga qaado ee taxiga ah dadka yaga sida loogu galaayo dhibkana loogu geysanayo inay nala arkaan waxaan kaliyoon ku darsanayaa waxay tahay calankeena jaadkiisa jababiirta ciidankeena jidka maanta lagu joogo markii aan jaleecaba farxad baan jidboodaye farxad baan jidbooda wassalaamu calaykum aad iyo aad baa u mahadsan tahay daawadayaalkaas waa Siciid oo runtii ka mid ah jaaliyadda Ogaadeniya ee ku dhaqan ku nool magaalada Sydney wali waraysigeeni farkamo qodno waxaan doonaynaa inaan dad kala duwan aan idin waraysano si barnaamijyo kala duwan aan halkan idinka soo tabino daawadayaal wadi inuu ku guda jira barnaamijkii aan idinka soo duubaynay barnaamijkii balaana ee jaaliyadka Ogaadeniya ay ku qabanayeen dalka Australia gaar ahaan caasimadda dalka Australia magaalada Canberra annagoo hor taagan baarlamaanka dalka Australia waxaan haddana ku leexinaynaa gabadh kamid ah gabdhaha reer Ogaadeniya ku dhaqan magaalada Sydney ee ku soo dhawow muxuu yahay dareenkaagu aad maanta halkan u timid maxaad dareemaysaa oo aragtaa maanta maadaama meeshu ay aad u qabowdahay dad aad u fara badan aad ku timaadeen muxuu yahay dareenkaagu alxamdulillah dareenkaygu horta waxa weeyaan si haddii loo eego aad iyo aad buu ii xiisa geliyey si aana filaynin inaan maanta maaragtay aan ku iman karo halkan kada baa ii muuqatay oo maaragtay hamigelin fara badan iyo xiisa gelin dareenkayga kalena waxa weeyaan maxaan ku dhahaa marka aan arko dadkayga dhibaatadiisa iyo dhibaatada haysata dadkayga sida ka muuqata sawirrada aad arkayso iyo dhibaatada loo geysanhayo waxa weeyaan isaguna wuxuu ii kordhinhayaa qiiragelin iyo oohin fara badan oo maaragtay aad iyo aad maaragtay iyaduna inaan dadkayga kala qayb qaato dhibaatada haysata baan iyaduna in kolkan dhowr fiiriyaba aan maaragtay aan laga yaabo inaana muddo seexanin waxayna iigu tahay taasi qayb qaadasho sababtoo Soomaalidu waxay tiraahdaa maxaan ku dhahdaa oohinina waa hiil marka hiilkaas iyo inaan roobka istaago iyo maanta meesha dhaxanta badan waxa weeyaan iyaduna inaan dadkayga aan u ogeysiiyo ta kale inaan ogeysiiyo dawladda Australia dhibaatada jirta iyo iyagu inay maaragtay ay u haystaan inay caawiyaan masaakiinta Ethiopia aanana u sheegayna sida sawirrada iyo dadka ka muuqata in ay lagu laayo lacagaha ay siiyaan Australia maaragtay Ethiopia ayna ogaadaan dadka lagu lahaynayo inayna dad ayaga oo kale ay yihiin oo bari ka maalin laga yaabo Australia inay aragto nafsigaas marka waxaan iyadana taas aan ku dhiirigelin lahaa ninkii gaarsiin kara dawladda Australia iyo annaguba inaan u sheegno inay ogaadaan lacagta maaragtay Australia ay bixiso Ethiopia ay siisa in lagu laayo dadka masaakiinta ah gabdhaha lagu kufsado maxaan ku dhahdaa iyo xoolaha dadka lagu dhaco maaragtay dadka si kasta oo loogu ihaanaysan kara in dadka lagu ihaanaysto dareenkayguna waxa weeyaan maanta waxaad moodaaba inuu maaragtay aan leeyahay maaragtay rajo weyn daawadayaal wali waxaan ku guda jiraa barnaamijkii aan idinka soo diyaarinay barnaamijyaasha ku barnaamijayay baarlamaanka dalka Australia ee kaga cabanayay dhibaatada iyo tacadiga lagu hayo shucuubtooda qaybtiisii hore intaas ayuu ku dhan yahay waa bahda Qoraxay Media Pacific oo isku duuban oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh